markii dagaalkii labaad ee dunida bilowday sanadkii 1939 dowladdii Midowgii Soofiyeed waxay go'aansadeen inay qabsadaan waddanka yar ee Finland xilligaa oo badanaa dowladihii awoodda yaraa ee Yurub ay ahaayeen kuwa la heesto laakiin shishahan lagu magacaabo Simo Häyhä ayaa soo galay safkii hore ee ciidamadii difaaca Finland wuxuuna isaga kaliya dilay 505 askari oo ka tirsan ciidankii Midowgii Soofiyeed taas oo ka dhigtay shishahankii ugu qatarsanaa taariikhda abid saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa taariikhdii Simo Häyhä iyo sidii ay ugu suurto gashay inuu daaqada ka saaro in ka badan 500 oo askari oo ka mid ah cadawgii ka soo horjeeday ciidankii Midowgii Soofiyeed waxay awoodi waayeen inay horay u socdaan sababtoo ah Simo Häyhä waxa uu qaarijin jiray askari kasta oo u soo dhawaada dhibaatadii uu ku hayay awgeed iyo asagoo xiran jiray dhar cadcad oo barafka u eg ayay ciidamadii Midowgii Soofiyeed ninkan u bixiyeen dhimashadii caddeed halka ciidankiisu u yaqaaneen shishahankii sixroolaha ahaa waxaa la xaqiijiyay inuu 100 maalmood ku dilay 505 askari buug uu qoray taliyihiisii ayuu ku sheegay inuu dilay 542 askari isagoo adeegsanaya qori rifle ah halka taariikhyahano kale ay sheegeen inuu dilay tiro intaa ka badan balse dhammaantood waxay isku raaceen in askarta uu dilay aysan ka yareen 505 askari taas oo ku kalay kaalinta koowaad shishahankii ugu qatarsanaa taariikhda halka kaalinta labaadna uu ku jiro shishahan Soofiyeed ah oo lagu magacaabi jiray Eva Sitranko dhinaca kale Simo Häyhä ayaa la sheegaa inuu mararka qaar adeegsan jiray qoryaha dirandooriga u dhaca taas oo tirada askarta uu dilay ka dhigi karta ilaa 800 askari dagaalka oo socday xilligii qaboobaha ama 3 bilood oo kaliya wuxuu ninka maalin kasta dili jiray 5 ilaa 6 askari halka maalin ka mid ah uu dilay ilaa 40 askari 2 maalmood oo kalena uu kala dilay 20 iyo 25 askari Simo Häyhä ayaa arinta ku muteestay dalacsiin aad u sareysa ma isticmaali jirin soo dhaweyso ama diirad qorigiisu ma lahayn wax soo dhaweyso ah balse wuxuu toogashada u lahaa khibrad 15 sano ah sidoo kale indhihiisu waxay ahaayeen kuwa aragti dheer waqtigaas waddanka Finland waxaa qasab ahaa in muwaadin kasta uu qaato tababar ciidanimo oo 1 sano ah Simo Häyhä wuxuu tababarkan qaatay sanadkii 1925 markuu dhameystay tababarkan waxaa lagula taliyay inuu iibsado qorigii uu ku tababaran jiray waana uu iibsaday intaa kadib wuxuu ku laabtay tuuladiisii isagoo ka bilaabay ugaarsi iyo beerasho ilaa laga gaaray sanadkii 1939 xilligaas oo ay soo weerareen Midowgii Soofiyeed markii loogu yeeray inuu dagaal ka soo qayb galo waxa uu casriyeen ku sameeyay qorigiisii duuga ahaa sidaas ayuuna ugu qayb galay dagaalka Simo Häyhä waxa uu ka qayb gali jiray tartamo dhinaca shiishka ah kuwaas oo ay qaban jirtay dowladdii Finland waxa uuna ku guuleystay bilado badan rikooradii uu dhigay waxaa ka mid ahaa in 16 jeer toogto bartilmaameed muddo 1 daqiiqo ah waana tan ka dhigtay inuu ku takhasuso shiishka Simo Häyhä iyo 31 kale oo shishahana ah waxa ay ka guuleysteen 400 oo askari oo ka tirsan ciidankii Midowgii Soofiyeed waxaana asaga iyo 31 kale oo shishahana ah loo diray inay hor istaagaan 400 oo askari oo ka tirsan ciidankii Soofiyeedka waxayna ku guuleysteen inay hor istaagaan ilaa iyo dagaalkii ka dhamaaday waxyaabaha u saalay inay ka guuleystaan waxaa ka mid ahaa ciidankii Soofiyeedka oo xiran jiray darees cagaar ah taas oo Simo Häyhä iyo ciidankiisii u sahashay inay si fudud u arkaan askariga iyo ciidankii Soofiyeedka oo aan lahayn saraakiil khibrad leh sababtoo ah hogaamiyihii Soofiyeedka ee xilligaas waxa uu dili jiray saraakiisha khibradda badan leh isagoo ka cabsan jiray inay afgambiyaan qaabkii caqliga badnaa ee uu toogashada u sameyn jiray halka shishaanada kale ay jiiftaan marka ay toogashada sameynayaan isagu waxa uu toogashada sameyn jiray isaga oo fadhiyo waxa uuna sheegay in fadhigu ka caawiyo in shiishka la helo bartilmaameedka iyo isagoo ahaa nin kaawan
dhinaca kale waxa uu afka gashan jiray baraf si aan neeftiisa loo arag, qorigana waxa uu dhex gelin jiray baraf si marka uu xabadda rido loo arag qiiqa ka baxayo. sidoo kale halka uu madaxa ka toogan lahaa askariga waxa uu ka toogan jiray xabadka, taas oo uu ku tilmaamay bartilmaameed la hubo. toogashadii asaga la toogtay, Simoheha waxa uu laf dhuunkashay ku noqday ciidankii Soofiyeedka, waxa ayna markii hore madaafiic ku duqeyn jireen meelaha ay ku tuhmayaan inuu joogo, laakiin markii dambe waxay asaga awgii u sameeyeen askar shishaana ah. in badan oo ka mid ah askartaasna waa uu laayay, laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa askari nasiib badan la helay toogasho, waxa uuna xabad kaga dhuftay wejiga, inkastoo ay xabaddu la baxday qayb ka mid ah daanka. Simoheha ma uusan dhiman, waxaana qalimo badan uu sameeyey uu caafimaaday maalin kadib markii uu dhammaaday dagaalka. sanadkii 1961 ayay dowladdii Finland siisay guri iyo beer halkaas oo ka sii watay noloshiisa, waxaana markii dambe uu u guuray guri ku yaala magaalada, halkaas uu ku qaatay noloshiisii intii kale ilaa uu ka dhintay isagoo 96 sano jir ah sanadkii 2002. waana shishaankii ugu qatarsanaa ee adduunka soo mara.